xerada gaaska dhaankaroone oo ku taala duleedka degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud isla markaasna ay fariisin ku leeyihiin guutada 13aad ee ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay laba askari oo ka tirsan ciidanka militariga 13kii bishan xilli habeen duleedka degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud ku dilay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad ciidamada ayaa ka soo qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib howlgal ay sameeyeen sida uu sheegayo taliyaha guutada 13aad qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhexe Nuur Xirsi Wardheere. taariikhdu markay ahayd 13kii bishii 8 2018 waxaa dhintay dable xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan qaybta 12aad Cabdullaahi Daahir Ciise Shiiqow oo ka tirsanaa ururka isku dhafka oo xerada hadda aan joogno oo gaaska dhaankaroone oo ay ku eedeysan yihiin laba askari inay ninka dileen askariga ah kuna dileen saacadu markay ahayd 9kii iyo barkii aroornimo goolada Galinsoor iyo ka dhaxayda Beendhaar ayagoo ay la socdaan baabuur candhameyd ah oo ari waday baabuurkiina meesha ku qalibmay eedeysanayaal Cabdirasaaq Tahliil Dhalac ku dhashay Gaalkacyo taariikhdu markay ahayd 1981 labo Burhaan Daahir Maxamed Cali ku dhashay Galinsoor 1986 eedeysanayaasha oo ku hadda meesha fadhiya ah shilka markuu dhacay ka bacdi ciidanku waxay orod dheer u galeen inay soo qabtaan eedeysanayaasha waxaa laga soo qabtay Soona Gaalkacyo 14kii bishii 8 2018 amaandulaha ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad gaashaan la sare Cabdikariin Warsame Maxamed ayaa sheegay in cadaaladda la horgeyn doono eedeysanayaasha isla markaasna xaqooda la waafajin doono sidoo uu sheegay taliyaha guutada waxa weeye nimankan gacan ku dhiglayaasha oo labadan askari ah oo ku dilay askarigaas xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo qaybta 12aad guutada 13aad ka tirsan ay si xaq darra ugu dileen magaalada Galinsoor agteeda ayagoo saarnaa gaari mataqaanaa candhameydle ah oo ay ka soo raaceen magaalada Cadaado isla markaa gaariga ay la soo raaceen gaariga asagoo shaaran shirkiisana isku dileen saddex askari ay gaariga shirkiisa soo fuuleen markay soo fuuleen oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo u soo wada fuuleen ayay gaariga dhexdiisii waxay kala dhaceen xabad asoo gaariga shirkiisu jira inkastoo khasaare badan gaarigii uu qallimay oo xoolo badan oo sitay xoolihii baaba'een haddana waa dambiilayaal lama dhigi kara waa gacan ku dhiglayaal weey sharcigaana la horgeynaya sharciga waxa ay xaq u yeeshaan bayna marayaan qofka bini'aadamka hadduu wax geysto wuxuu geysto oo dilo mas'uuliyaddeeda asaa qaadanaya sharcigaana la horgeynaya صادق عبد الشدنا صادق لك ورباهنت ستار اف ام صادق عبد الشدنا صادق لك ورباهنت اس بي سي مقالة عدادو